بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan mardow insha Allah taala bilaabi doonaa bishii soon ee Ramadaan ilaahay hadii nabad uu noo gaarsiiyo ilaahayna waxaan ka baryaa inuu nawaafajiyo khayrkeeda wixii shar iyo shaydaan ahna ilaahay naga qabto inta jirna ilaahay caafimaad uu siiyo qof kastana dhibaatada uu qabo ilaahay uu ka qaado intaas kadib waxaa aad iyo aad noola soo xiriira bukaano cudurrada wadnaha iyo cudurro kala qaba oo su'aalo ku saabsan Ramadaanka iyo waxa looga baahan yahay ama daawada wixii laga yeelayo ayna weydiiyaan Ramadaanku marnaba dhib ma keeno faa'iido ma ooyee qofkana waxa ugu jira markastaba khayr marka insha Allah sida aan la wada soconno Ilaahay subhanahu wa ta'ala qofka wax culays ah kuma saarin wax awoodiisa ka baxsan bukaanada marka waxa loo kala qaybinayaa labo qaybood waxay yihiin qayb bukaano iyagoo jiradooda ayna ka hor istaageen inay soomaan iyo bukaano jiradooda ayna u saamaxaynin soonka marka qofkii awoodiisa ay tahay inuu soomo daawooyinka iyo noloshiisa qaabka uu maaray lahaa waa fududahay مثلا waxaad ka soo qaadaa dadka qaba dhiigkarka ama sokorta ama cudurrada kale ee wadnaha dadkaas hadii markaas ayna gelaynin qaybta labaad oo xanuunkooda ama jiradooda ay aad u daran tahay waxa looga baahan yahay wax allaale wixii maalintii ay samay jireen ama daawada ay qaadanayeen maalintii in loo wareejiyo habeenkii nasiib wanaag Soomaaliya waxay ku taalaa equator-ka ama dhulbaraha sida darteed maalintii habeenku waa isla egyihiin waxaad ogtiin inay jiraan wadamo marna ay maalintu aad u dheeraato oo habeenkii uu gaabto marna habeenkii oo aad u dheeraado maalinta ay gaabato laakiin Soomaaliya 12 saacadood ay u badan tahay isbedelkuna nus saac kama bato maalintii mar inay nus saac dheeraato ama maalintii mar nus saac yaraato marka saas darteed daawooyinkii la qaadanayo maalinta waxa lagu aadi karaa habeenkii markii la afuro ilaa iyo saxuurta inta u dhaxayso inta badan daawooyinka qofka waxa loo sheegaa saacadaha uu qaadanayo qaar waxa la yiraahdaa quraacda kadib qaado ama qaadada kadib qaado ama cashada ka bacdi sababtu waxay tahay marnaba ma fiicno daawooyinka dhan hal waqti in la isku wada qaato caloosha bini'aadamkuna ma wada xamili karto daawooyinka qaarna inay isugu tagaan caloosha ayaa laga ilaaliyaa sida daraadeed ayaan bukaanada waxaan ugu soo jeedinaa talo ah inaan daawada u kala qaadno oo qaar aan dhahno subaxdii quraacda kadib qaadada kadib cashada kadib qaar la yiraahdo 10 o'clock 4 saac oo u dhaxayso quraacda iyo qaadada qaar aan dhahno 12 saac galabnimo qaado saas oo kale ujeedada taas laga leeyahay marka waxay tahay in daawadii maaragtay la kala ilaaliyo qaar waxa jira pressure-ka dejiya in marka kulligood hal mar la wada siiyo ma fiicna waqtiga loo dhaxaysiyaa daawooyinka marka maalintii la qaadanayay waxa loo bedeli karaa in la qaato habeenkii marka la afuro ama 4 saac habeenimo qofka dii cashay oo kale ama saxuurta ka hor kuwa la qaadanayay maaragtay quraacda ka hor taas waxa way waqtiyada daawada waxa kale oo ayadana mulaaxado mudan oo muhiim ah waxyaabo laga reebo qofka ayaa jira sida waxyaabaha la shiilay dufanka badan waxyaabaha soo kale waxaan ognahay Ramadaanka waxyaabaha aad loo isticmaalo waxa kamid ah oo inta badan dhaqanka Soomaalida ku batay in raashinka badankiis qaar badan oo kamid ah yihiin wax la shiilay oo saliid lagu soo shiilay burka sambuuska malawaxa saas oo kale waxa kale oo aad loo isticmaalaa macmacaanka iyo sokorta timirta lagu afuraa waa sunno muxuu ahay waxa aad loogu daraa raashinka sokor si qofka sokortiisa kor ugu soo kacdo laakiin waxa haboon qofka sokor qaba in uu ku talax tagin macmacaanka sida daraadeed timirta hal xabban waa lagu afuri karaa waxa laga dhigi karaa 3 xabbo waxa laga dhigi karaa witirku ma aha 7 xabbo ama 21 xabbo wuxuu ka bilowdaa in hal kali lagu afuro hadii 3 ama 7 la cunana afurkii wax dhibaato ah ma imaanayaan sidoo kale saxuurta hal xabbo hadii lagu saxuurto oo timir ah macnaha waxa la diidayaa waxa waaye in jirkaaga hal mar macaan badan uu galo oo kor sokorta u kacdo hadii qofku uu sokor qabay taas uma fiicno waxa kale tooda aad u badan raashinka cusbada leh oo ogtihiin sambuuska oo kale inta badan waxa laga sameeyaa hilib
qudaarna waa lagu daraa waxaa laga sameyn karaa malaay muxuu cusbadana in lagu yareeyo ayaa fiican waliba waxaa jiro inkastoo aanan ogeyn sida available u tahay mashiino oo wax lagu yani kariyo oo saliid la'aan yani sambuuska oo kale iyo hilibka iyo malaayga iyo ayadoo waxa saliid lagu darin ayaa waxa ka dhigaan sida wax saliid lagu kariyo oo kale ulajeedadu waxay tahay wixii awal qofkan uu iska ilaalin jiray ramadaankana inuu iska ilaaliyo in raashinkaas ziyaadada ah oo hal mar la wada cunayo una fiicnayn in waqtiga afurka qofka uu badsado yani cabitaanka iyo xoogaa timir ah oo sokortiisa wax yar kor u soo qaado maanta dhan oo oomana cabitaan inuu cabo wuxuu cabi karaa shaaha qaxwada caanaha biyaha casiirka kulli waxa laga ilaalinaa un waa sokorta badan waxa kale oo muhiim ah in yani afurka kadib aan cuntada la wada cunin oo xoogaa afur kadib la cuno laakiin tartiib yani xoogaa ka bacdi marka caloosha ay dheefshiido qaybta koowaad ee cuntada in haddana waqti kadib xoogaa kala la cuno khasab ma aha raashin aad u fara badan oo kala nooca in lagu afuro waa dhaqanka Soomaalida ee gashay laakiin awalba quraacdana hal nooc la cuni jiray kadibna qadada la cuni jiray kadibna cashada marka inkastoo maalintu baahi badan tahay haddana waxa la rabaa inaan xasuusnaano hada awalba habeenkii inta la seexdo ayaa baahi la soo kici jiray dadweyne saacado badan oo habeenkii ah lama cunto lama cuno subaxda marka la soo kacana quraac qiyaasaha la cunaa waxa la rabaa ramadaankana sidoo kale inuu noqdo yani maadaama maalintii xoogaa la oomo yani in bacda al-afur cabitaan iyo yani maaragtay muxuu ahay fawaakih yani maaragtay muxuu ahay noocyo kala duwan jiro muxuu ahay qofkii sokorta qaba hada khasama inuu moos iyo ku afuro qofkii sokorta qaba waxyaabo kale tood oo waxa jira sokortan aan kicinaynin oo ka helayo dheecaan looma wada diidin yani cad yar oo qaraaha uu cuni karaa qofku maadaama sokor markuu qabo qofka ma loo diidin sokorta oo dhan waxa la diiday sokorta waxa dhaqso u kicinayo marka hadii uu qara cuno waa inuu cunaa wax yar oo afurkaas kadib xoogaa sokorta kor ugu soo qaado sidoo kale moos hadii uu la cunayo waa inuu wax yar ka cunaa jab ama ka yar uu ka cunaa laakiin waxa la cuni karaa baashan leeyahay bambeelmada oo kale waxa la cuni karaa muxuu ahay burtuqaalka muxuu fawaakihda aan sokorta dhaqso u kicinaynin waa la cuni karaa waxa kale tooda la cuni karaa yani raashinka caadiga ah oo ummadda Soomaalida ay dhaqanka u leedahay mushaarida hadii aan sokor badan ama lagu dareynin oo qiyaas loo cuno maaragtay muxuu ahay yani raashinka dabiiciga ah in la badsado oo kuwaas lagu dadaalo waxa muhiim ah kale in aan malabka la isku badin malabku waa daawo sida quraanku uu noo sheegay laakiin dadku uma wada baahno qofka jirana daawo la siiyaa qofka aan jiranayn malabka waa inuu wax badan ka cunin oo qiyaas yar yani maaragtay uu ka cuno sababtoo waa maxay malabka yani waxa ku jiro muxuu ahay wax oo sokorta kor u soo qaadi kara dad badan waxa laga dhaadhiciyay malabku sokorta waxba kama dhibo malabka waxyaabaha ku jira sokor kaliya ma aha waxa uu daawada u yahayna in sokor ku jirta ma ahana waxa waaye waxyaabo kale oo nacfi u leh jirka bini'aadanka ayuu ka kooban yahay sokorna way ku jirtaa marka qofka sokorta qaba hadii uu u baahan yahay waxyaabaha kale ee nacfiga u leh jirkiisa waxa la rabaa inuu ku xisaabtamo sokortiisana in ay kacayso markuu malabka isticmaalo sida daraadeed in la qiyaaso oo ama la yareeyo ama la joojiyo hadii qofku uu qabo sokor waxaad la socotiin qofku markuu malabka isticmaalo jirkiisa waxa galay energy fara badan hadii qofku uu dhaqaaq badan sameynaynin energy-gaas jirku ma isticmaalo waxa loo baahay marka wixna la faray in malab la cuno ama timir la cuno kaliya ma aha in tarawih la dukado in masaajidka loo socdo yani waxa soo dhan shaqana la faray marka inaan dhinac ka qaadano sunnadii dhinac kalena aan maaragtay fududeysana ma aha in raashinka la yareeyo waa sunnaday ka mid tahay in baahida la ogolaado sunnaday ka mid tahay waxyaabahaas oo dhan ogaada inay yihiin waxyaabaha bini'aadanka caafimaadkiisa danta ugu jirto sida aan la soconno in caloosha la buuxiyo waxay keentaa cudurro badan sunnada nabiga waxa way kaleey salaatu salaam caloosha inaan la buuxin sunnada nabiga waxa way inaan cunto la cunin adigoo aan baahnayn marka wax cuntana in yani maaragtay aadan dhirgin taas way asaasku ma aha waxyaabaha ugu nafaqada badan in yani lagu dadaalo ma aha nabigeenu kaleey salaatu salaam ma dhirgi jirin
laakiin anagu waa dhergnaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam caado uma ahayn inuu 3 waqti wax cuno annaga 3 waqti inaan wax cuno cid lagu khasabtay ma laha macnaha waxaa la rabaa marka yani inaan sunnada nabigana raacno calayhi salaatu wasalaam u turno caafimaadkeena u turno noloshayna qaaliga ilaahay uu na siiyay taas marka waa muhiim dadka marka ramadaanka dadka jiran daawooyinkoodii waxay u wareejinayaan marka la afuro kadib iyadoo waqtiga la kala gedinayo daawooyinka loogu talagalay 12 saac mar in la qaato sida daawada sokorta oo kale waxaa la qaadan karaa afurka kadib iyo saxuurta ka hor yani waa la kala dheeray karaa maxaa daawada dhiig karka ayadana waa fududahay waqtiga in lagu aadiyo daawada cholesterolka marka waxyaabaha oo يعني زيادة أو أول قفك إسكت دوري جري برورتا صوبك دفنك سكرت بدن معانك بدن يعني دركتا أنت صورنا وإلا إسكت إلى عليو رمضان كنت وجرو ضدك قار مركب أو حاجة جيران كاتيجوري اللبات أو جيردو ده إنه أسامحينين إن أي صومان قفك وعلى قلي أما وحقبة جير أبان هذا إن لقلو أما ودع أما وحقبة حنون يعني أنا لقى رئيسانين وحقبة كانسر wuxuu qabaa maxay jirooyin kansar kaliya ma aha yani jirooyinka wadnaha kale qofka wadnihiisu uu tabar daran yahay ama aad daciif u yahay qofka stroke uu ku dhacay maskaxdiisa dhibaato ay gaartay laakiin wali aan ka soo kabsanin qofka duruuftiisa waxa la rabaa inuu fiiriyo oo isku qasbin hadii awoodiisa ayna gaaraynin soonka kuwaas ilaahay wuxuu siiyay cudurdaar waa ognahay khasab ma aha qofka inuu ta soomo nafta iska qaado qofka hadii uu soomi karo oo ay u fududahay inuu soomaa haddii uuna soomi karin oo duruuftiisu ay ku adag tahayna ilaaha ka cafiyay waxaa jiro alternative kale ama waxyaabo kale oo booski soonka u galayo marka ilaaha naga dhigo kuwa soonka khayraadkiisa iyo barakadiisa iyo ajirkiisa helo ilaahina ha noo dambi dhaafo ilaahina inta jirna caafiyo allahna barakeeyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.